xiisad ka taagan magaalada Muqdisho qaasatan golaha wasiirada. Halkani waa Dunida Media. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda oo naalaba kaga hadalna falanqaynta arrimaha siyaasadda waxyaabaha ka cusub Soomaaliya iyo waliba guud ahaan caalamka. Waa wiil uu adeer u yahay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uuna ka dhawaajinayaa in loo darsaday hogaaminta wanaagsaneed ee madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Wuxuuna sheegayaa in adeerkii Xasan uu yahay nin dalka aan wax u qaban karin. Wuxuu sheegay in uu burburiyay dowlad qurxoon oo Soomaali wax u haysan. Sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed u istaagaan sidii ay isaga qaban lahaayeen cadowga raba inuu ummadda u horseedo dhibaato iyo dowlad xumo, isagoo oo sheegay in loo xiisi doono dowladdii qurxooneed ee Farmaajo. Sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay inuu Xasan Sheekh Maxamuud yahay nin dalka baahi u saadiyay, isagoo oo dowladaha shisheeye kaga raadinaya caawinaad, taasi oo sharaf dhac u ah ummadda iyo qaranka Soomaaliyeed, sharaftoodana uu ku bahdilay. Wuxuu yiri aan iska qabano kuwa raba inay boorsadooda buuxsadaan ee aan rabin inaan helno dowlad wanaagsan. Sida aan ognahay muddada uu xilka hayay Xasan Sheekh Maxamuud ma jiro ficil uu sameeyay oo ka farxiyay shacabka Soomaaliyeed, balse Farmaajo uu ahaa ninkii dhisay quruxda dalka, ciidamo xooggan, shacab faraxsan, dowlad horumarsan oo caalamka la tartami karta. Waxa uu soo celiyay sharaftii iyo dowladnimadii. Ha yeeshee waa loo diiday in shacabka Soomaaliyeed nabadaasi iyo quruxdaasi ku jiraan, waxaana ay go'aansadeen calooshooda u shaqaystayaasha in ay mucaaradaan madaxweynihii dalka dhisay. Ha yeeshee waxay ummadda Soomaaliyeed u horseedeen niyad jab, in loo laabto dhibaatadii qabyaaladda iyo hanti urursiga ahayd ee ka soo baxday ummadda Soomaaliyeed. Waa tahay daawadayaal, waxaan weli bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda oo aad ka dhageysanaysaan Dunida Media oo markaasi alabaan idinkugu soo gudbino waxyaabaha ka cusub siyaasadda Soomaaliya guud ahaan caalamka. Fadlan haddii aan mar kale kuugu celiyo channelka subscribe saar, sidoo kale gambaleelka furo si uu kuu soo gaaro muuqaaladana halkani ku soo gudbino. Like garee una sii share garee saaxiibadaada jecel inay wax ka ogaadaan halka ay marayso siyaasadda dalka iyo waliba guud ahaan tan caalamka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhawaaya dheeraana asaga keensanaba laakiin kursiga kuma soo noqon. Markay heerka marayso oo la culaadiyay ninkii odaga ahaa dalkaasi u hogaaminayay, gar iyo gardarrada lagu culaadiyay, maanta ma la mahariyay oo ma laga raysto mase waa loo darsaday. Xashaa lilaahi haddaan dhinac u eego oo rabbi ka cabsado waa loo darsaday. Sababta loogu darsadana way idiin sheegeen. Saraakiishii aad ogeedeen ee intaasoo sare shaqaynaysa waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Guud ahaan intaas ayaanu kusoo afmeerayaa barnaamijkeena falanqaynta arrimaha siyaasadda dalka iyo waliba guud ahaan caalamka. Daawade channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, sidoo kale gambaleelka furo si uu kuu soo gaaro muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid.